طبعا معلومات badan buu halkan inagala wadaagay markii uu lahaa Facebook waxa loogu talagalay kaliya ardayda jaamacadda Hartford inay ku wada xiriiraan markii maskaxda waxa ku soo dhacday oo niyo soo taladaada Facebook mid yar iskuulkii ka saaqay sameeyay sidee bay Hartford inay ardaydii Hartford dhiganaysa inay ka yar iskuulka saaqay oo u sameeyo wax ay ku wada xiriiraan oo aamintay hanaga daalina mar dhow idinkan idinku soo wareejin doonaa إلى هذا الوحى إن الرجوع عبد القادر تصدق دمياء ملقاك حزب المعارض كوطني ورسول قليه كله بل إلى هذا ما يمنين أنت أنا قولي إن قفك حياة وحان مركل السودية إذا كبر عليه بل إن قليها إن الرجوع الصوت هو وحيا به عاود هكذا شيء. I would like to summarize to you the main points that has been told by the different people who were standing here. The member from Somaliland's Journalist Association emphasized the role of Soldier on media empowerment. They told that they have made different trainings on media capacity building, and also that they are taking into consideration how a reliable news could be broadcast during the elections in Somaliland. Also, she told that Soldier is throwing fire and water how to monitor the news which would be produced when the election period has been reached. Also, Rabla Mohammed, one of Somaliland's officials, one of Somaliland's social population, emphasized or highlighted the different types of media, including Facebook, Twitter, Snapchat, Instagram, and the like and the like. He also, underlined its pros and cons, and he stated that if it's used as suitable, it may be achieved progress. He took as a different examples which the world have controlled the social media, since there is no still and situation which can be, chided, or any country cannot have laws and regulations with the social media can be protected or can be controlled whenever they made a mistake or whenever they write fake news. He also gives us an examples and advice. I'm just now gonna call one of Somaliland's opposition party's official. He will emphasize and talk about the role and the position of political parties to increase the fake news or unverified news circulating in social media, printing media, and also the electronic media. There is upcoming presidential election dated on November 13, which will occur across the regions and districts in Somaliland. So Somaliland society, including the political parties and social itself, are, very much eager to see how the game will be finished. And the media is watching it. If it's used as the most suitable way, it's used as a positive way, this country can be, developed and can be survived by any danger. But if it's used as a negative side, it can, jeopardize the stability of this nation, as we'll see in the different countries in the world, like Rwanda. So that's the main points which has been highlighted during the members of, having the lecture in here. So I will translate with the next person, but I'm going to call to the Chairman of Wadani Political Part. Madsanidin markale imikana waxaan u yeerayaa Cabdiqaadir Jirde gudoomiyaha ku-meel-gaarka ee xisbiga mucaaradka Somaliland ee wadani oo ka hadli doona bal ka xisbi ahaan doorka ay ku leeyihiin sidii loo yareyn lahaa fake news ama warka beenta ah maadaama aynu waqti xasaasi ku jirno su'aalaha hoos ka calaamasada hanaga caajisina inta kusoo wareejin doona microphone-ka gudoomiyaha soo dhow.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لموضوع كده اسبوعها waxaa la rabaa markaa hore in yaroo soo raacisaan briefahoo dee aanu ku soo talagalno laakiinse intaanu ka gaadhnayo waan hayaa bahalkan waan hayaa anigu waxaan haddaynu ku noqono fake newska dee there has always been a market for fake news in Somaliland. dadkeennu waxa weeye waa oral society waxba lama akhriyo way yaradinta wax akhridaa marka hadalkaa qiimo lahaa hadalku laba meelood uu qiimeyn jiray wararka beenta ama dee mafrishka koob uu ka ahaa oo mafrishku beenta uu dhali jiray khaanadaha ka maqanay wuxuu xogteeda aanu hayna u buuxsan jiray liberal isagoo aan dee cida wala buuxsan jiray mafrishka laga soo kici jiray xagga dumarkan ku yar ciidan oo deesh loo xidhan jiray gambada dumarkuna way dhali jirtay oo markii dumarku meel isugu yimaadaan they chat iyadana markaa dee waxyaabo badan oo lagu dardarayo marka there has always a market for it. markaan waxaan ka hadlayaa nimika recent events dhacay intaanu dee xisaabta yeelanay oo anagu victims ahayn haddaanu ahayn xisbiga wadani oo ka wada warqabtaan ta ugu horreysa waxay ahayd ma aha imanka inaan dee xisbi eedaynayo xisaabta kala eedayn maayo laakiin factskii dee dhacay ayuun baan ka hadli doonaa hadhowtana dhibaatadii xisaabta u geysatay ayaan sheegi doonaa waxaa ka warqabtaan Star News oo ka soo baxda Nairobi inay fake news qortay in wafdigii ballaarnaa ee Somaliland ee tegay Nairobi wafdigaasoo ka koobnaa musharaxa madaxweynaha Maxamed Biixi Yunis Xirsi iyo odayaal kale waa kriimkii xisbiga oo u tegay inay abaarihii dalkeenna haystay hay-adaha mucaawanada bixiya Nairobi iska fadhiya iyo safaaradaha ajnabiga ah inay ku booriyaan inay si qodobka badan ugu soo shaqeeyaan oo dee waxay qabanayeen qabtaan oo report director siya waana la wada kulmeen waxaa jirta jariidada la yiraahdo Star News inay qortay fake news sawirro la soo kala googooyay halka ku yaala oo wafdigeeniyo Umar Cabdirashiid la fadhiya joornaal markii dambe uu ka daba tagay waa kan halkii laga soo liftgareeyay iyo halkii la keenay Umar Cabdirashiid oo la fadhiya safiirka Uganda ayaa halkii safiirka Uganda inta la gooyay Cabdiraxmaan Xerer la dhigay waa aragtay ninkii daneynaya way ku jirtay hadii aan la socoteen oo saxaafadu dhan way ku jirtay waa la soo wada dhigay tabtaasay ahayd editorkii uu beeniyay wuxuu waan khalday anaga cid baa advert naga qaadatay buuri halkan uu ku sharxayaa advertkii naga qaatay ayaa laga dhigay buuri editorial waa ka halkan ku leh we have strict policies on separating editorial content from advertising. This process was circumvented in an underhand manner at the kalmada xusuusta in an underhanded manner by an unknown outsider. Unknown outsider kasani Soomaaliyeed mu noqdo oo journalka intuu uga dhigay waxaan advert ka kireystay ayay ka dhigeen editorial oo war dhaba marka waa laga daba tagay ninkii shaqadii waa laga eriyay we have been the victims of that fake news. waxa kaloo la socoteen Kalsan TV isaguna waxa la isu geeyay inuu ka dhigay farmaajo iyo Cabdiraxmaan Xerer kulmay waa dadkiina la socdaayeen kulli waxa idinka iga badiya waa tii Kalsan TV beenisay waxa jirtay warqad laga soo saaray Facebook la dhigay oo la leeyahay Yusuf Garaad baa qoray oo magaciina la khaldo waxa la transitional federal government of Somalia dowladda Soomaaliya maanta transitional maaha waa laga tuuraytaa waa the federal government of Somalia la yiraahdo oo waxay u qoraysaa waxa la qoray bishii afraad ka wadiyay 2017 Ministry of Foreign Affairs baa loo qoray qadara wala daf Ingiriisi ay ku qorantay eega
Since 1991, Somalia has been separation by civil war. But North Somaliland, having peace and security after quarter of century, we have opportunity to reform union from North Somalia. Yusuf Garaad Twitteriisu ku beeniyay laakiin se maxaa mushkiladu waxay tahay waxa soo dhaxan ka wada waxa jirta halkan kale warqad la leeyahay Michael Keating ayaa qoray isna Twitteriisu ku beeniyay uu leeyahay xisbiga intaas oo dhan waxa weeye xisbiga wadani ayaa midnimada doonaya u dagaalamaya taageera qadar lacagta waxa loo weydiinayaa xisbigaas xukunka qabanaya oo chance baynu haysanaaye taageera waatan the election leads to having key of opportunity, but to having key of opportunity to empower the union political party Wadani, who is responsible for union reform. وفي إنجليزي قال لي يوسف قراد باقرو 20 سنة BBC تك شقيني وأنت أساسا مع عدود كبحي. مايكل كيت الناس اللي أصلا يسقونه بيني. مشكلته محيط هاي. دد كانوا دد سوفيستيكيت لما غلط كا إنه قبلنا إنه دد كانوا ما قبلنا كروين تبادل. ما فرش كيف على شيء جيا وركي وتجيا. تكلاك فوش حمي حوي. ما ده هذه حزب معارضك. وأنت ميلي صوتك تو. ورنا يسا سوح يجينا يسا بهاشا. ويسوح يكتنوا ويدون ستار نيوز بيبر كا. واتي اللي سوح يكتنوا قدومية هي دعوة ولا واتي مدة سعودي. واتي BBC دبيت كذا شيء. وكن الحلبانو برلمان كي يكتشر محمد سلام عليه الدفاعي يلا هو رب. كلسن TV سلا صار لوجه هذا. مركز دباتة هو حوي. أنا وخود إذن من حساب تسميسي. لكن سوى حوي ده حسب جينو سكوفا إنه كفاية يستوحى. السجنة إنسلت بيكوتهاي. ومضنا عيب بيكوتهاي. إما كورقتها في الحمد ده. تعال لي يوسف كراد باقرأ مراد الله عيسى هذا. إلى هذا كود ملك دون تنكو بجيده. ده هو عيب باقرته. أنا وخود إذن منه. لكن سوى حنو كحنا هاي. إن ذاتك أنا غونت بيدين. ده أي سوق عتانو يكود جريان. وين هذا مراد يوسف كراد نواتا. هل كان اللي استوى حفلة دوات بوغي غيلة كان عيوة توجيده وعقلوا يمكن كتيرتا يوتيوب حفلة اللي حمر بالوقت أنا قعدنا كوي هذين منه لكن فاكت كمان نسين هنا وحلا سوفر يسي لأن يرسي الناس وكلا قروح بدن وموبيل قالية ستة أو ذا فورورو موبيل ده كعيارية يأفرح حيران ولا تشوفي وحاجة دم الله دقي أود مودسين هذا سوق قرا عمبا بدأ وترورتا ولا ونك ودينا ينتاجرنا ونك عبد الرحمن عمر ينتاجره هنا يا إسماعيل عمر ينتاجره هنا مياني هذا بقى عيب هين مشرحي كل مية إنتوا برعايز لسه تاجو إنه تادتك وشيء وإذا حمر باشر كدعي لو تاجره أيوه isagoo og in fake news tahay malin adaa sameeyay laakiin say inuu suuq geeyo isagu suuqgeynta u sameeyo labadaba kulmiya suuqgeynta u sameeyay kalsan iyaga u sameeyay waa laga yaabaa annaga qibadayda wax kale lagu eedayo anu laakiin sadda inta victimska ka nahay qolada kale waxay victim ka yihiin iyaga sheegi doona waana wax aad iyo aad u foolxun waan arkaa horta de social media أنا قاعد ومقلو وجنريشن كي ورانا لكن سميدهم بانو قاعد مركا كلمة السوشيال ليلا تدخل حقوقاتها وح نظيفة وطاهرة كلينة لكن السوشيال ميديا نفتيسو أيها نقضى أنتي سوشيال وحنا يسكدرا نمكي يوغاندا نمكي رواندا تدك حسوقي انترهام والورنجر civil society organization أيها هاي social media استعمالية حسوقي دتك حسوقية مركز civil society نفتي ذا هي أنتي سوشيال نقطة civil society إنه حنوها يصيرنا وح كسليمة دوّد دي سوت تجيبه social media نفتيسو to a large extent
wuxuu noqdaa anti social waxa jirta journalist aad weyn oo laga yaabo in maqaaladeeda akhrideen oo qof haweena oo la yiraahdo politoyempi oo independent ku qorto mar editor ba ka ahayd waxay ku tilmaantaa waxa ama haado YouTube-ka ama social media waxay tiraa waxa weeye waa real man waxba kala saarin imanka printed media dee markaatay leedahay oo editor waxay soo maraysaa editor bay soo maraysaa oo proofreading bay soo maraysaa oo cid baa ka jeegareynaysa laakiin se halkaa hoose waxay tiri waxay noqotay lunatics meel dadka waalwaalan u furan dadka dhimirkana u furan oo qof waliba galaayo separation ma laha innaga dadkeenu sophistication maaha waxaana jira sinister moves kaloo ka hooseeya bal mid baan idin taabsiinaya maanta fake news-ka la isu keenay nimanka aan quraacan la leeyahay waxaa tirahdaan Ismaaciil Cirraanu taageeraynaa oo xisbiga wadani ayaa raba midnimada xisbigii waa la kala qaadayaa cidda leeyahay midnimaday rabtaa aniga maaha maxamed biixi yunisna maaha xirsina maaha reerahoodana maaha implication waxa way Cabdiraxmaan Celiye reerkiisa ayaa doonay midnimada the real message ka dhimo inta ma hawdani implication waxa weeye wax hore dhacay qoladii berigi hore lagu eedeeyay federaalka ayaa maanta xukunkii imanaysa marka waxaan hadhayilsanina aniga la ima jeedo iyo reerkayga maxamed biixi yunis reerkiisana looma jeedo xirsiga reerkiisana looma jeedo وانا لكلا قادي كرنون هذا يصور تقلت هاي انت عبد الرحمن لو صورال جينيس لو قادله marka waxaan doonayay in fahamsiiyo what's behind this maxaa macaash ku jira yahay in la yiraahdo عبد الرحمن reerkiisa xukunka imanayo waa kuwii shalayna federaalka doonayay iminkana hadii uu codeysaan federaalkii bay tagayaan implication ka dambeeya waa ka waayo hadaanu qiimahaasi ugu jirin de musharax xisbiga kalmiyo soo muuqaateen waxa foosho xuno mu yiraahdeen cid kale uu deyn lahaa cid kale oo ciyaala suuqa oo meelaha la orda ayuu deyn lahaa laakiin markuu isagu soo qaato suuqgeynta uu suuqgeynaya implication keedu wadani oo dhan maaha marka waxa weeye tay leedahayna waxa weeye iska horkeenka dadkii bay kala shakisiinaysaa wax hore inuu ka nimi ay dib loogu celinaysaa waxaana fiican ma idinka ma dadka waalwaalan sheegay aqliga saliimka lahayn ee waxa soo kala ka shaqeynaya mise inteeda mas'uuliyiinta ay xilku saaran yahay inta waalwaalan waxa ka shaqeynaysa waa halkeeda laakiin samaknin mas'uula oo dalkan madax ka doonaya uu soo qaato waxa og yahay waalan uu cod ku doonto it's a disaster maxay kalifaysaa Soomaalidu waxay tiraahdaa qaniyo ka fujisa qaniyo ayaa ka fujisa maxay marka annana inuu talabadeedii qaadno oo u bareerno way jiraan anagaba kuwa lunatics-ka wax badan oo kulmiyo wax ka sheegay ama muuse wax ka sheegay arkay way jiraan laakiin dhaanka ka dhuftaanu war get lost baan ku war xishooda waxba miidaan kala garanay miidaan aniga garanay marka waxa ay leeyahay waxa laga rabaa dadka madaxdii inaanay u sacbatumin oonay ummadda u sheegin way dhacaysaa mas'uuliyiintu ama xisbigu ama xukuumaddu ama intellectualisku ama dadka waaweyn min fadlakum hasuuq geynina waxa ninkaas in la suuq geyn buu rabaa suuq geyntii ha u noqonina xisaabtana way saaran tahay xisbigeygana anigu de waxa lagu soo eedeeyay ma hayo way dhici kartaa cidna malaa'ig maaha waxa laga yaabaa midaan cidiba dirin oo iska dawaqsan oo de moogtay team official de fadhi ku dirirkii oo maanta helay Twitter weeye fadhi ku dirirka Twitter helay marka qaar aan dirsaneyn waxa sameeyay waa laga yaabaa laakiin anagu maxaanu leenahay ka aan dirsaneyn markuu beenta sheego anagu suuq geyn mayno waxaanu ka hadlaynaa waa suuq geynta gudoomiyaha kulmiye waa ku ceeb iyo xisbigiisaba iyo mas'uuliyiinta saraba inay suuq geeyeen T star
العادية إن تهاي lift and paste تي كلسن تن يوسف جراد تن مايكل كيتين وإنت بلا بينيه وإنت بوجيهين لبينيه إن السوق هي أنواع حاران وأنا مقطع مركب عنو لأنه إذا كان نود حياة ده يقول هذا قلدن كو عديه واحد ترى هذا ورداس not going to work كم بدي دومر كانوا علينا لا ما فرش قابل نايس نعم رشدوا يقيبسين هنا وتبدي لانه ويسعاينونه تذكر سكور كيننا سوشيال ميديا هنا أنا قاعد ما يستعمله حلقة وح بحال بال توكل هذا هيستا UK يوروب وحيكون قبيلات ده هالك هتالله هالك متالله I avoid contact with them markaan halkaa tago waqtigayga waxaan ku lumiyaa inaan tago museum dagaalkii halkaa ka dhacay markaa doo fiirsada qol waliba sibay u fasirato narrative bay u haysataa yaan la idinku qasbin aqli baa leedihiin garaad baa leedihiin yaan la idinku qasbin qolana yaanay narrative-keeda idinku qasbin oo idin gashan imika tiiba socoto waxa la doonayaa narrative-keeda si wixii dhacay in cid kaliya la saaro cid kaliya waa one side waa narrative dhinaca laba qof haday islaan waa laba sheeko hal sheeko ma aha nin walba dhinac uu ka taagan yahay nin walba isaga isla aagsan hadaynu ka sheegay taariikhda hadii caruur markay yareeydeen waaya markay yareeydeen qabaylku waa ku isdili jiray hadii taariikhda uu noqotaan nin walba mar walba reerkaaga laga gardaraa waxaad hooyada ay awowgay aabba ka maqli jirtay markaas reerkaaga laga gardaraa reerkaagu mar raba muu gardaray waa dhaqan had iyo jeer cidda kale waxa lagu barayaa lagu sheegayaa ciddaas weligeed bay daba taagnayd ciddaas weligeed waxa ay isku haynay cidda kalena waxa ay haysataa marka labadii narrative midnaba hayibsanina don't buy none of it midnaba hayibsanina waxa la idinka iibinayaan waa fake news kaas oo kale fake news kaas narrative particular oo cid gaar ah leedahay cid gaar ah wadato idinka iibinaya saxaafadana waxa leeyahay naga ilaaliya social media ha code gareynina hadaydan verify gareyn karin ha qorina waayahay gudoomiyaha dhaqaaqna muxuu yahay dowladda si baa isku horta ma isticmaalaba social media laakiinse waxa weeye waxaanu leenahay cid noo qaabilsan saxaafadda iyo social media cid noo qaabilsan baa jirta wuxuu xisbigu gelinayo waa wax edited ah oo la wada eegay oo ishi la mariyay waxaan hoggaanku ogeyn inay dadkaasi geliyaan supporterigsana waanu ka waaninaa annagu ma doonayno doorasho la isku haysto cidina ma ogola doorasho lagu muransan yahay cidina ma ogola Soomaaliland ma faa'iidana hadii lagu murmo hadii doorashada lagu murmo Soomaaliland faa'iideysa ma jirto anigu doorashooyinkii hore dhan baan joogay iyadoo 80 cod lagu kala helay baan joogay dadkii dhexdhexaadinayay ayaan ahaa ummadu diyaar uma aha mar dambe inay isku dhacdo diyaar uma حسابتنا إمي كوي درينسان يهينو عد هدي هياي يدادان عد قولي لسو عراريسا مجرتو عد قولي لسو عراريسا مجرتو وحاوي مركي حمر دقالو كسعودي أيا دولدي دتي كل حد عضي ويتري كالا دي دلك بتبادي ودلك وقربدا الشعب كي حمر دقالو waxay ku yiraahdeen kaliigi cunow kaliga dagaal kaliigi cunow kaliga dagaal maanta waxay sayay liidkii waa intii ugu ladnayd baa haysata dalka intii ugu ladnayd ayaa dalka cod bay idinku leeyihiin in u dagaalantaan idinku ma laha hakana yeelina noo codeeya xaq bay idinku leeyihiin waa diidi kartaan laakiin noo diriro oo noo dagaalama wallahi aan idinku lahayn duqmaana noqonaysan hadii ka yeeshaan waxa kaga baxdaan kaliga cunow kaliga dagaal Sorry,